الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد waxaynu hore u soo xusnay darajada ay ku leedahay salaadu islaamka dhexdiisa iyo fadligeeda waxaynu kelmadana raacinaynaa axkaamta salaada oo aan la fudaydsan karin maxaa farala shuruudii sunnayaashii aadaabtii arrimahaasoo runtii qofka muslimkee tukanaya mar walba u baahan yahay oo dee waa kala miisaan shayga faralka ah iyo shayga sunnaha ay way kala duwan yihiin xagga marka laga miisaanka waxa u soo horeeya oo furihii salaada ah shuruudaheedii salaada shuruudaheedii waa miftaaxa salaada ama furaha lagu galo weeye waa afar arrimood midda waraysaa waxa weeye qofkan tukanayaa inuu dahaaro qaato dahaaradu laba nooc bay isugu jirtaayo miduu qofku nijaasta iska nadiifiyo nijaastii jirhkiisa ku taallay marada iyo meeshuu ku tukanaya saddexdaba dahaaradaas waa mid dahaarada labaadna waxa weeye miduu qofku xadad ka nadiif yahay xadad waa inaanu jinaabo lahayn dhiiggii caadada iyo dhalmadu jirin wayse la'aani jirin kaasta waxaa la yidhaha dahaarada xagga xadadkaa la yidhaha marka labada dahaaraba waa inay jiraan arrinta saddexaad waxa weeye qofkan inuu cawradiisa asturo arrinta afraadna waxa weeyaan wakhtigii salaadu inuu galo marka dhinac kolka dahaarada la kala qaado shuruuddu 5 bay noqonaysaa marka dahaarada la isku darana shuruuddu waa 4 intubana dee adiladoodii bay leeyihin oo wakhtigii markuu ilaahay ka hadlayay wuxuu ihi inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waa waajib wakhti leh oo mu'miniinta la saaray cawrada asturiddeeda markuu ilaahay ka hadlayay wuxuu ihi yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid dahaarada markuu ilaahay ka hadlayay wuxuu ihi inna allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin istiqbaalu lqiblana dee aayaadkaa suuratulbaqara ku jira iyo axaadiista nebigoo caddaynayaan markaynu u nimaadno tiirarka salaadu ay ku taagan tahay waa 14 14ka waa inaad mid ka mida haddaad ka tagto la timaaddaa isagii ama ragcaddii dib u soo celisaa xikmadda aynu sheegaynaa waxa weeye qofku inuu kala garto wixii sujuudi sahwi lagu kabayo iyo wixii sidiisa loola imanayo waxaa kow ka niyada qofku waa inuu niyoodaa salaaddii marka uu gelayo iyo nooca ay tahay takbiiratulixraam baa laga maarmaana allaahu akbar oo niyada ay israacayaan alqiyaamu fi lfard salaada faralka ah waxaa farala inaad isu taagto qiraa'atu lfaatixa faatixada inaad akhrido qur-aanka kale maha laakiin faatixadaa farala alrukuuc rukuucdii waxay ka mid tahay arkaantii iyo tiirarkii salaada alixtidaal waa sarajooggii ka dambeeyey rukuucda asujuud sujuuddiina waa faral iyaduna oo aynu ogsoonnahay oo 2 sujuudooda aljuluusu bayna sajdatayn labada sujuudood faral ee fadhiga yara u dhaxeeya ayaa isaguna farada adumaaniina xasilooni qofku inaanu sii soco iyo soo soco ahaanina uu kala saaro sii socodka iyo soo socod rukuucda sujuudda iyo ictidaalka intaba aljuluus litashahud ataxiyaadka laftiisoo fadhi lagu akhriyo ila qofku sarajoogaba uu ku akhriyi karaa laakiin arkaanta waxa ku jira inuu la fadhiisto waxaa arkaanta ka mid ah ataxiyaadka dambe laftiisa ka hore maaha waa ka dambe salliga nebiga lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam assalaamu calaykum oo ta hore ah iyo tartiibta inay sidaa isu daba socoto arkaantu oo laga soo bilaabo niyadii allahu akbarta hore laguna dhameeyo assalaamu calaykum idan markaa waa aqwaalu wa afcaalu muftataxatu bitakbiiri mukhtatamatu bitasliim waa ficilo iyo hadallo
كبلابي الله أكبر كنا لمانا يا السلام عليكم أفريت طبعا تيراركي كميدا بين شيغني صلاة waxay u baahan tahay waxyaabo sunnayaal ah oo qaarkood ay si kala adag yihiin sunnayaasha u si adag waxa kamida takbiiratul intiqaalaat si socod iyo soo socod inuu qofku Allahu akbar mar walba leeyahay oo aamusnayn tasmiica kamida sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd tahmid tasbiix liba kamida subhana rabbiyal a'la يا سبحان ربي العظيم التحيات كهراء كمذا التشهد الأول وحكم إذا قفكي أفر ميلاد وكعماه كرقاضة ساوتاجو مركو حرانيو مركو ركوع لا كساطاسة يا مركو وسير ركوع أيو يا تحيات كهراء مركو كقعة أفر تام ميلاد بالنبي كسوجا صلى الله عليه وسلم إنه مديك تدل لقبض إحدى سنيا شيء كمتهاي دعاء الاستفتاح وآخريو انتانو فاتحة آخرين مركو صلاة حدو دعاء سنها استفتاح الله إلى وآخريا لغو فرا صلاة قرآن وآخريا كدن بأي فاتحة ولما نوح عن سورة اسكول أما يسترانيت آية ذا كم إذا نوح آخري كراه مركا الله نقضي هديجي نبيجا سورة لما يستران با هديجي سوب بدنا فرلك صلاة سنها هبينكي وكو أخري جرى آيات العليرة كلا دوان لكن سورة لما يسكتران بحاجة فرلك أفضل بدنا وسورة قابنا سنياشا waxa kamida taamiinka in aamiin la yiraahdo iyadoo la iswaafajinayo aamiinta maamumka iyo aamiinta imaamka markaas aamiinta malaa'igtuna ku beegmaysa man waafaqa taamiinuhu taamiin al malaa'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi waxa kamida markuu qofku sujuudsay ama rukuucsan yahay tasbiixa akhriyaban oo sunna ahayd mid baa ku filan laakiin inuu ka siyaadiyaa sunayaasha kamida oo 3 5 7 uu ka dhigo inaha soo dhan waxay kamid yihiin sunnayaasha salaada oo dhowr iyo 10 qaybood sida aynu soo sheegnay waxa jira waxyaabo makruuhaada oo qofku markuu salaada ku jiro tobaneeya oo ajriga ka yareynaya oo loo diiday oo adaabta salaada ay kamid tahay waxa iska daayo waxa kamida inuu marada iyo timaha markuu sujuudsan yahay celceliyo cimaamadiisu kolba kor u laabaya uu diiday nabigu timo dheer uu leeyahay oo hoos u dhacay markuu sujuudayay buu celcelinaya sax maaha wala nahiyay waxa kamida ijtimaalu sabmaa duuduubka dhagahala inuu qofku go' kaliya intuu sidaa isugu doobo gacmahana hoosta gashada uu yiraahdo saasan ku tukanaya waxa laga aaminahay in cawradiisa inay banaanaato markuu gacmaha kor u qaado xadiidku nabigu ku diiday sallallahu alayhi wasallam talafumka kamida inuu qofku afka duubto inuu afduubashadaas gooyo wixii la mid ah cumaamada iyo inuu isku duubo ayaa iyaduna karaahiyooyinka kamida waxa kamida inuu qofku gaalada isu eegaysiiyo hadii jeer markan uu tukanayo inuu gaalada isu eegaysiiyo midalan dhaxda qabsado la gacmi sidana loo qabsanayo laabta la saaraya dhaxda inuu qabsado takhashur baa la yiraahdaa خاصرة كليدا إنه قبضة وكراهيو التشبه بالحيوان مركو تكان أي حيوان كأنه إسكويا جيسيو دينا بيجو افتراشا كافتراش الصبع إسكو جلشة تبها الكوكرة وسيدا أي جيين وسيدا قعمها ودقي لا سحولة ولا ديدي وأنا سحولة لولك كر وقاعدة وحكم إذا إقعاق وحلا يراده وحيوان كيو كشبه يو هبك دايرك إنه صفر يستا صلالك ودقه jilbahana kor u taago salaadii ma buraysa haduu sidaa u fariisto laakiin karaahi uu ku dhacay waxa kamid ah al-harakatu al-qalila li ghayr al-haj iyadoo dhaqdhaqaaq sameeyo ama eegmooyin hareeraha ah wax baahiyo salaada dhexdeeda u qabaana aanay jirin oo waa xatooyo shaydaanku qofka salaadiisa uu xadayo ayuu nabigu yiri markay Caaisha weydiisay tiri qofkan hareeraha eegay ka waran shaydaankii baa qayb kamid ah salaadii qofka ka xadaya buu rasuulku وعكمل إلصاق البطن بالفخذ حال السجود مركا وقفك السجود سيئين ويسكود تشيو بقى إيه بوديوينك وصدا ويسوق جنبريو أما يسوق عبيو أنا هو الذي ده يوان وسكلا شوا وصدا ماذا حوسي فروريا وعليسكي سماذا حي الله ماذا كعماد وكل عا
oo bogga iyo bowdyaha aanu isku dhajinin waxyaabuu nebigu diiday bay ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam inahaasi waa inaha loo yaqaano makruuhaat salaad salaada waxyaabaha karaahiyada ah intabana daliil baa ku soo arooro de haddaynu silaa soo qaata wakhtigu dheeraanayo waxyaabaha jira salaada buriya waxa kow ka ah hadalka ogaanta ah inuu qofkii iska hadlo berigii hore waa la hadli jiray waa la joojiyey markuu ilaahay soo dejiyo waquumuu lilaahi qaanitiin salaada isu taaga idinkoo aamusan marka hadalkii iyo salaaddii isma galaan ninkii u duceeyey ninka kale hindhisay nin baa hindhisayoo markaasuu ninku yidhi salaada tukanaya yarxamuka allah markuu ninkii saxayey nebigu wuxuu ku yihi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas calaa macna alxadiid hebelow salaada inta lagu jiro ma habboona in dadka lala hadlo cid maqan waad u ducayn kartaa nebiga waa inaga u ducaynayna laakiin qof aad toos ula hadashaa la diidaya walow qur-aanba aad kula hadashay yaa yaxyaa khudi lkitaaba oo yaxya la yidhaha haddaad leeda kitaabka soo qaado ood aayadda ku akhrido qasadkaasi laftiisu wuxuu keenaya inaad qof la hadashay uun waxaa ka mid a dixkiga qosolka waxa la idhaahdo meeshii khushuuc baa lagaaga baahan laakiin haddaad qososho salaaddii way ku buraysa waxaa ka mid a cunitaanka meelaha iskaga egyihiin weeye ama iskala mid yihiin soomka iyo salaadu oo soomkiina cunitaan lama ogolo oo xaaraan salaadiina waa xaaraan ama jaad takhsiinsanow ama saambuuse ama maxaanku idhahdaa wax kaleba calaasho oo wax afkaaga ku jiro oo aada liqdo waa xaaraan inta salaada ku jirto waanu kaa burinayaa waxaa ka mid a dhaqdhaqaaqa salaada danteeda aan ahayn haddii dhaqdhaqaaqu maslaxadda salaada wiya waa la ogol yahay oo ama aad dadka wax tusayso ama aad jamaca buuxinayso ama aad si uun dee dhaqaaq salaada dan u ahayd dhaqdhaqaaqaas mid salaada dan ama aha uu qofku samaynayaa waa qof xarakaadkiisu badan yahay oo saa isu xoqayo oo kalarka hagaajisanayo cimaamadiisa ayaa waxaa ku howlan markuu dhaqdhaqaaqaasi bato salaaddii waa kaa burinaya ilaa 4 shay baynu sheegnay waxaa ka mid a fuqdaanu shuruud cadal waqt haddii shuruudihii la waayo salaaddii way kaa buraysa shuruuduhu maxay ahayn daahir dahaaray ahayd matala dahaaro ma lihid sidoo kale maba qibladiiba uma jeedid cawradii maada surin waxyaabahaasoo dhan waa ku buraysa salaaddii waxaa ka mid a arkaantii oo iyadana la waayo tiirarkii salaada mid ka mid a haddaad goosato oo labadii sujuudoba mid ka tagta rukuucdii baad ka tagta faatixadii baanaad akhriinba 14 tiirarka ahaa aynu soo sheegnay maxaa tiirar looga dhigaya haddaanay salaadu ku taagnayn markaa tiirarkaa mid ka mid a haddaad ka tagto iyo shuruudaha mid ka mid a haddaad ka tagto salaadaadii way buraysa marka ilaa 6 shay meelaha ayaa burinaya salaaddii dee waxa salaaddii ay kaaga buraysa iyo waxay ku ansaxaysa iyo waxa ajrigeedu ku badanayo iyo waxa karaahiyada ajrigeedu ku yaranayo intaba inaad ogaataa waa daruuri markaa sirta salaada ama xigmadeeda hore aynu soo sheegnay cilmiga salaadu ay u baahan tahayna intanaynu ku soo koobnay allah inagu anfaco wahada ma aquluhu wa astaghfirullah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh